الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، موضوعا موسى السجارة بعد مودين وسجو أتكيني هداد حسوسنتي إن جمعة كصدحها هيد نفس الموضوع أيه خطبة يكسب سنيد، لكن ألا ما قدرين إن تعليق لقب حيه وأهلين أدوكتهين وهلكن كذا نلسوا قدوناتي مالنتي درادة أباغتي. هذا ما أنتوا كسوا علي كل يبنوحوا شيء إن دكت البدن الموضوع على جهر له. موضوعنا أهمية السولية، لأنه وحوي موضوع من المواضيع الاجتماعية كمدة، وشرعنا سئوا أهبيي ذكرنا سئوا عاديستين وحانا نصيب دراء هرماها سيدا سوكلا sida aroosyada iyo meydka markuu dhintay iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah in dadku waxay caado ka dhigteen ay iskaga socdaan oo ayna isweydiininba waxankadu sharcigu ma ogol yahay mise ma ogola. waxaana arrintaas sii xumaysoo sii walaaqday in dad culimo ku sheega oo cilmi gaaban qaarkoodna dan gaarah iyo nafci gaarahay ku qabaan ay ku ilaashanayaan inay mawaadicda sidaas oo kale ah dadka wuxuuna rureeyaan oo wuxu luuqluuqaan oo sharci uga dhigaan oo ay intay dadka ama ay ku raacaan ama ay ugaba sii horeeyaan oo ku shajacaan. marka saddex arrimood oo ku saabsan geerida markuu qof dhinto waxyaalaha dadku ay sameeyaan, saddexdaasaan wixii allay fahamsiiyo ka dhahaya. saddexdaas arrimood oo ku badan dadkeenna kolkaan leehna soomaali keliya kama wada, aad bay caalamka islaamiga ay ugu badan tahay, ugu baahsan tahay. saddexda arrimood mid waxaa weeyaan wax lagu magacaabo sharciga lagu magacaabo alcaqru. caqriguna waxaa weeye xoolo la qalqalo marka uu qofku dhinto, xoolo la qalqalo. midka labaadna waxaa weeye wax sharcigu uu yidhaaho anniyaaxa. midka kale ee saddexaadna waxa weeyaan wax ay dadku ku sheegaan, tacziye ay ku sheegaan. sharcigu wuxuu tacziye u yaqaano iyo dadku waxay tacziye u yaqaanaan. tacziya oo soomaaligana ay ugu dhawaaqaan tacsi, waxa ay sharciga ku tahay iyo dadku sidaa u haystaan. midka hore waxa weeyaan waa xaaraam. rasuulka alla sala allahu alayh wasalam waa xaraameeyey in qofku markuu dhinto xoolo loo qalqalo. waxayna ahaan jirtay caada carbeed oo qadiim ah oo sharcigu u gooyey. caqri bay ku magacaabi jireen. marka nebiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa caqra fi lislaam, laa caqra fi lislaam. waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuud wa cabdurazaaq, waana xadiis saxiixa weeyaan. nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay islaamnimada caqri wax la yidhaahi ma jiro, yani xoolo meydka loo qalqalaayo ma jiraan. marka taasu waxaa weeye waa caado jaahiliyahoo soo jiri jirtay weeyaan. saddexda arrimoodba caado jaahiliyahoo jiri jiray oo sharciguna oo gooyaba.
xoolaha marka la qalqalayo ee aad taqaanaan ee golkuu qofku dhinto ama suuqa dad loo dirayo xoolo laga soo iibinayo ama xeradii la gelayo oo qofkii xooluhu ka dhintay laga soo qabanayo neef ama ka badan laga soo qabanayo ee dadka qaarkoodna ayba sii dardaarmeen oo yidhaaheen shaygaas iyo waxaas iyo waxa la isoo raaciyo ama ha laygu soo qalo ama ha laygu soo aaso oo ha laygu aaso marka ha laygu duuga markay leeyihiinna ay ka wadaan ha laygu soo qalqalo ha laysoo raaciyo oo ay laba noqotay dadka badankooda haddayna dhammaantood ahayn ninkii magaca lahoo aan ka tegin xoolo lagu soo duugo oo markuu dhinto yacni la qalqalo inuu yahayba khalaas ninkaasu nin si neef baktiyo ama dameer baktiyo la jiiday oo kale ah inuu la mid yahay oo qiimo dhacay oo aan la daryeelin isaguna intuu noole aan isdaryeelin ma jirta horta caqiidadaasu ma jirto waa jirtaa xoolaha waxaan u haystaa aaskaygaan u haystaa buu odaygu dhahaya xoolo aanu ku guursanaynin oo carruurtiisa iyo aanu siinaynin oo qaraabadiisa u baahan aanu ku sadaqaysanaynin oo uu u hayo oon markaa dhimataha lasoo qalqalo arrintaas sidaasu marka xaraam weeyaanoo waa arrin jaahiliyahoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gooyey weeyaan waxaana wax qaar badanoo culamaa ulmuslimiin ka mid yaha ay yidhaahaan xoolahaasu inay bakti noqonayaan xoolaha noocaas oo kale ahee loo qalo qofka maydkaa loo qalo waxay noqonayaan ee isaga lagu xurmaynayo maa uhilla ligayri illaahi di u alla subxaana wa tacaala qur'aankiisa ku sheegay baa noqonayaan oo xaram bay noqonayaan maa uhilla ligayri illaahi macnaheeduna marka waxa weeyaan luqa ahaan marka la ilaaliyo waa waxa loogu dhawaaqay marka la gowracayo magaca alla magacaan ahayn ee bismi illaahi aan la dhihine ama bismi nebi ama bismi malag ama bismi wow iyo sheekh iyo awliye iyo wax sidaas loogu dhawaaqay laakiin sharci ahaan waxaa weeyaan wax alla wixii loogu dhowaanayo oo lagu darajaynayo dhiiggaa daadintiisa alla waxaan ahayn walow bisinka ha loo qabto walow ha gowraco qof muslimaho wayse qabaayo ha gowraco xaaji ama macallina xaafid alqur'aani ha gowrace kolba arrintu marka niyada ayay ku xidhan tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi likulli imri'in maa nawaa qof waliba wuxuu niyooday buu leeyahay marka hadduu afka bismi illaahi uu ka yidhaaho niyadiisana ay ku jirto in neefkankada gowriciisa uu ku xushmaynayo ku xurmaynayo ama muxuuha qofkan kada dhintay ama qabrigan kada ama xuska mawlidka waxay ku magacaabaan xuska sheekh hebel wax sidaas oo ay ku xurmaynayaan oo ku darajaynayaan oo haddii la dhaafiyo ayba u haystaan in meel lagaga dhacay oo odaygii aan la xurmaynin oo la darajaynin shaki male inuu noqonayo xaaraam uu noqonayo niyadaasaa la fiirinaya waxaa ka jirta dhowlka carabta qaarkood markay madaxweynayaasha iyo meel soo marayaan wax loo gowraco oo dabiixo oo lagu salaamo oo inta jidadka lagu sii qabto ari lasii hayo hukuu soo marayo oo baabuurka uu ku jiro soo marayo lagu dhufto marka dhiigga lagala hortago oo lagu soo dhawaynayo yani waxa noocaas oo kale ah ee qof nool ama qof dhintay qof wanaagsan ama qof kale kan loo gowraco badda iyo istakfirowga waxay yidhaahaan iyo ruuxaan iyo waxa loo gowraco ee caadaadka faraha badan ee taqaanaan kulligood wada xaraam weeyaan waxa sidaa loo gowraco o dhanna bakti buu noqonaya gowracu waxaa weeye waa cibaadana allah iskale alla unbaa marka wax loo gowracaa allana subxaanahu wa tacaala 3 mar unbuu cibaado ka dhigay gowraca oo xoolaha in dhiigga la daadiyo xoolo la qalo uu rabo midu waa udxiyada ama ciidweynta xoolaha la qalo sax weeyaanoo waa cibaado wanaagsan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo sunnadii abuna ibraahim ka soo jeeda calayhi salaatu wasalaam oo wanaagsanna weeyaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu sunneeyey marka walow qofku haba iska cuno isaga reerkiisa iska qadeeyana ha dhigtaana waxaa laga rabaa maalinta inuu qofkii qaadir ee kari kara inuu xoolo qalo oo dhiig daadiyo weliba neef tilmaan lahoo shuruud leh buu sharcigu jiday midka kale waxa weyn markuu ilmo dhasho ilmo markuu dhasho qofkii ilmahaasuu u dhashay waxaa laga rabaa inuu xoolo ka qalo
wiilkii 2 neef ariya gabadhiina 1 neef ariya oo ugu wanaagsan tahay maalintu dhashay maalinta ku 7 ahayd in laga dhigo. mid kale waxa weeyaan xoolo hadyi la yidhaaho xaramka lagu qalo oo iyaguna meelaan xaramka aan ku asaxaynin mina iyo maka iyo adoo xaramka gudihiisa meeshii la doonaa lagu qali karaa laakiin mina iyo waxa u fiican maka ayaa ugu fiican. saddexdaas wixii aan ahayn ma jiro oo cibaado noqonayo oo gowracu cibaado noqonayo. marka qofkii cibaado ka dhigta waxa saddexdaa wixii aan ahayn inuu wax gowraco wuxuu noqonayaa qof cibaado iska samaystay uu noqonayo. wixii kale marka hilib ahaan loo qalanayo ee ama marti lagu sooriyeynayo ama laga ganacsanayo ee dadka laga iibinayo ama la cunayo ama iyadu marka waxa weeyaan iyaduna waa fiicanta waa mubaax way ka banaantay cibaado ma aha. laakiin hadduu qofku suuqa ka soo iibsada iyo hadduu xoolo qasho iyo hilib cun looga qasdaayo iyadu waa shay mubaax oo intifaaca xoolaha lagu intifaacay alla inoogu abuuray inaan ku intifaacana ayay ka mid tahay. inaan qalanno inaan caanahooda maallo inaan raranno inaan iibsanno saas alla inoogu baneeyey marka waa noo bannaan tahay. marka taasu midaas weeyaanoo xaraam weeyaan ee waxa weeyaan bal caadadaas waa la iska ilaaliyo. dadka qaarkood ba marka waxay ku sheegayaan inay sadaqa tahay sadaqana ma aha. wixii rasuulka alla sala allahu calayh wasalam uu sadaqa inayna ahayn uu sheegay ee xaaraam uu ka dhigay qofkii sadaqa ku sheegaayo marka waa qof rasuulkii alla la tartamay weeyaan. arrinta kale waxa weeyaan midda lagu sheego tacsi ay ku sheegaan aan ka horraysiiyo oo mid kale oo ay dadku ku sheegaan sharcigu ku sheegay nacyi. annacyu nacyigu waxa weeyaan qofka geeridiisa oo la iclaaniyo oo la baahiyo oo dadka loo sheego oo dadka la gaadhsiiyo isagoon dan kale laga lahayn ilaa dadka inay ogaadaan mooyaane. taasna waa iyaduna caado jaahiliya weeyaan oo horraysay oo sharciguna uu gooyey. carabtu waxay yeeli jireen markuu qof dhinto gaar ahaan hadduu qofkaasu magaca leeyahay se meel sare ay koraan manaarad iyo wax lamida ay koraan bay ku dhawaaqi jireen oo dadka ogeysiin jireen oo ammaani jireen oo markaasay rag intay diraan oo farda ay saaraan meelaha beeluhu ay degaan ee isugu yimaadaan iyo ceelasha laga cabaayey iyo bay ku soo wareegayeen oo markaas iyagoo dhawaaqayo oo buuqayo oo ninkii ammaanayo hebelkii waxaan idin ogeysiinaynaa hebelkii kan ahaye keer ahaye fulaan ahaye inuu dhintay. taas marka waxa weeyaan nacyi baa la yidhaha xaraam weeyaan. rasuulka alla sala allahu alayh wasalam waa xaraameeyey. xudayfa ibnu lyamaan radia allahu canhuma nin saxaabigo la yidhaha baa dardaarmay markuu dardaarmayey uu sakaraadayo wuxuu yidhi kolkaan dhinto qofna ha ogeysiina geeridayda ha ogeysiina qofna ha u sheegina. waxaan ka baqayaa inay tahay nacyigii rasuulka alla sala allahu alay slam uu xaraameeyey inay tahay baan ka baqaya. marka dadkan horta reer deexeedkii arrintaas way yaqaanaan xaaraantaa way ku dhacaan. waxay yeelaan markuu qof dhinto xaafadihii iyo tuulooyinkii iyo qaraabadii oo dhan baa dad loo dirayaayo laisugu yeedhayaayo ilaa ay dadkaasi isu yimaadaanna qofkii la aasi maayo. ma jirtaa taasi mise ma jirto? guudlahay waa jirtaa. waa inaad u alholaysaan inaad iska celisaan. ya hadda waa kasii yartay waa tabartii aa yaraatay dadka hadda. marka taasuna nacyi baa la yidhaahaayo xaraam weeyaan. waxaa jira marka isagu nacyi bannaan oo qofka geeridiisa sheegideeda la sheego. mid bannaan baa iyadu jirto oo waxaa weeya waa hadday maslaxa diiniyahay ku jirto. masalan dad baa laleeyahay war nin baa naga dhintay mayd baa noo yaalle kaale nala aasa. ciidan baad ka dalbanaysa. si reer baadihii iyo way iskaashadaan oo waa yeelaan. anaguba halkan kada waa yeeli jiray oo marka qofku dhinto oo dhallinyarada loo sheegi jiray waxaa la dhihi jiray nin hebel baa dhintay alaabtiina soo qaato qabriga tago oo qabriga sii qod. ama qof dhaqa iyo qof ku tukada iyo qof qaraabadiisii oo meel jiro telefoon loo dirayo oo inuu yimaado oo marka qofkaas muxuu arrimihiisii uu maamulo iyo ama agoontiisii inuu u yimaado iyo laga dalbaayo wax sidaas oo kale loo ogeysiinaya haddii ay tahay oo sidaa dad gaar oo si gaara u khusaysa loo sheegayo taasoo dhib male waa fiican tahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay annajaashi maliku alxabasha radia allahu canhu oo nin muslimahoo saalixa ahaayo muslimiintii soo hijrootay bilaad alxabasha usoo hijrootay gacan qabtay ahaa
markuu dhintay waa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisiiba u sheegay oo wuxuu yidhi walaalkii najaashi ayaa maanta dhintay nakciyaan ku tukan nin muslima oo beeled gaalaad ku dhintay oo aan lagu tukanaynin dambe lagaga tukanaya isaguna islaamnimadiisa qarsanayayba baa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam alla ogeysiiyey markaasuu isaguna asxaabtiisa u sheegay marka wuxuu yidhi inakaan aan ku tukannay nin walaalkiin oo saalixa baa maanta ardulxabasha ku dhintaye kaale aan ku tukannay marka meeshii ciidda lagu tukan jiray inta loo soo baxay oo dadkii nebiga alayh salatu u safiyey baa lagu tukaday salaatu aljanaaza cala alghaa'ib marka wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tukado daraaddeed ghaswatu mu'ta dagaal la yidhaaho oo nebigu calayhi salaatu wasalaam jeish uu diray oo soo dagaalamayo 3 nin oo saxaabo ahoo uu madax uga kala dhigay hebel baa madaxa hadduu dhintay hebel baa madaxa haddii la dilay hebel baa madax sidaa uu yidhi 3diiba markii la laayey zayd ibna xaarisa iyo jacfar ibna abi aalib iyo cabdullah ibna rawaxa radia allahu canhum ajmaciin maalintii la laayey baa alle rasuulka u soo sheegay sina waxyi ugu sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dadkiiba u sheegay jeish meel loo diray oo soo dagaalamayey oo dad badan oo ka mida qaraabadoodii ay ku jirto wiilashoodii iyo raggoodii iyo walaalahoodii iyo ilma adeeradoodii ay ku jiraan oo loo dhega taagayo jeiskii talo muxuu mutay iyo laleeyahay buu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ooyiyo ilmaynaya weliba dadkii la laayey guryahoodii qaarkood buu tegay oo carruurtoodii iyo uu dhundhunkaday oo sida ilmo jacfar iyo ilmo zayd iyo kale marka arrinta sidaas oo kale ah nin saaxiibkiis loo sheegayo inuu aaskiisa iyo ka qayb galay iyo laleeyahay in hebel baa dhintay laleeyahay loo ogeysiinaya ama walaalkii ay tahay ama maxaa dad uun calaaqalla leh oo si gaara loogu sheegayo ay tahay taas iyadu kuma jirto laakiin middan iclaanka ah taas weeyaan waxa hadda marka kolkii ay la helay waxyaalahan kada warbaahinta ahee ama la qoro ama afka laga sheego waad og tihiinoo markaas had iyo goor waxaa la sheegaya waxaa la leeyahay ogeysiiska waxay yidhaahaan ama xayeysiiska yidhaahaan baa lagu soo dhex dara waxaa dhintay hebel hebel oo kan ahaayo keer ahaayo kada ahaayo hebel dhalayo hebel walaalkii ahaayo waxaa la ogeysiinayaa geeridiisana qaraabadiisii meel alla meeli joogtaba qaraabadiisi oo dhan caalamka ku kala baahsan ama kolalka qaarkood yaaba lasii sheegaya laleh meel heblaayo meel heblaayo kala jooga beled hebel iyo beled hebel yaa la ogeysiinaya maxaa laga ogeysiinaya qofkii oo dhintay oo la aasay baa qaraabadiisii oo dhan meel ay joogaan adduunka joogaan ba la ogeysiinaya ama joornaalka lagu soo qorayaayo marka waxyaalaha suuradiisii iyo baa lagu soo qorayaayo markaasaa la leeyahay manaasibtuu qabtay iyo meelihii iyo waxyaalihii iyo baa la tiltilmaamay la sheegaya arrintaasu marka waxaa weeya nacyi baa la yidhahaa xaraam weeyaan iyadana marka waa in laysa joojiyo lacagta lagu bixinayaana marka xaraam bay noqonaysa kolku shayga xaraam yahay kolkii idaacada la geliyo ama joornaalka lagu qoraayo lacag baa lagu bixinaya haddii telefoon la dirayo ama fooneeyo iyo loo dirayo lacag baa lagu bixinaya marka shay xaraama wixii lagu bixiyaana xoolaha lagu bixiyaana xaraam weeyaan oo qofkana waa ogtihiin inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi meeshuu istaaga ka dhaqaaqi maayo qofka maalinta qiyaamaha ilaa dhowr arrimood la weydiiyo arrimaha marka waxaa ka mid ahaa maalkii xagguu ka keenay iyo xagguu ku bixiyey marka kii aad arrimahaas oo kale ku bixisay ama qof dhintay xoola ugu qalqashay ama muxua aad ka qayb gashay ama aad joornaalka aad ku qortay isagoo ulajeedadaadu ay tahay un dadka qofkaas inaad dadka ogeysiiso oo baahiso dhimaanshihiisa waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu su-aalayo lagu ciqaabayo qof walooba ogow waxyaalahaas waxbaha ku darsan haddii la yidhaaho oda hebel baa la xusayaayo xiskii sheekh hebel iyo waxaasaa jooga wax ku soo darsay iyo waxbaha ku darsanin xaraam weeyaan marka qofku kolkuu dhintay xoolaha la qalqalo iyo kolkii sanad guurihii la gaadho midda la qalaya xuska lagu magacaabaana waa isku mid xaraam weeye labadaba biijmaaci almuslimiin midda kalena marka waxay tahay midda inagu tacsi aan ku magacaabno carabigana waxay ku magacaabaan ma'tam bay yidhaah ma'tam waa fadhiga la fadhiisto kolkuu qofku dhinto meel loo fadhiisto guri u badan gurigii qofka laga dhintay gurigiisii
ama qaraabadiisii gurigiisa in la fadhiisto oo halkaas muddo la fadhiyo ilaa 7 beriya meelahaasoo gogollaab waxay yidhaahaan in la sameeyo intaa cunto lagu cunaayo taasuna xaraam weeyaan oo laba xaraamood isku jirta weeyaan oo iyada oo isu imaatinka iyo fadhiisiga iyo cunto samaysigaas uu xaraam yahay iyo isagu xoolihiina dee la qalqalayo oo caqri iyo niyaaxo wada jiray noqonaysa tacziya sharciya ayaa jirta iyo mid inagu tacsi aan ku magacaawno yani iyadii un laga keenay laakiin xaraam tacziya macnaheedu waxaa weeyaan luqada carabiga ee sharcigu uu ku yimid waa sabirsiin weeyaan qofkii musiibadu ay ku dhacday oo loo gacan dhiibo la sabirsiiyo yani la waanwaaniyo oo geerida la ilowsiiyo oo inuu sabro lagu waaniyo taasaa horta taczi la yidhaha taasna marka meel kuma xadidna meeshii aad qofkii kula kulantaba waa tacziyanaysaa oo ducaynaysaa qofkii ka dhintay oo isagana sawir baad ku gubaabinaysaa oo marka in la isugu yimaado meeshii la isugu yimaado oo la yidhaha waxbaa la tacziyanaya tacziya ma aha taasu maatan bay carabiga yidhaahaan sharcigana niyaaxu ku yahay niyaaxa waxa weeyaan lafdi ahaan haddii loo xallilo waa qayladii iyo oohinta dhawaaqa leh baa niyaaxa la yidhaha asalkeeda laakiin sharcigu niyaaxo wuxuu u yaqaanaa wax alla wixii qofku markuu dhinto musiibadii weyneeye ee dadkii soo xusuusiye hadba xusuusta ku kiciye oo dhan xaaraan bay noqonaysa xadiidka aad maqlayseen nebiga calayh isalaatu wasalaam niyaaxada waxaa la yidhaha wuxuu ka dhigay min amri iljaahiliya waxyaalaha ummaddiisu ayna ka tegaynin alfeeriya rasuulka calayh salatu wasalaam mucjizadiisa waxyaala jaahiliyad ah oo ummadaydu ayna ka tegaynin baa jirta buu lehay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxyaalaha waxaa ka mid ah niyaaxa cala almayit dadka nasabkiisa oo la duro hebelkanuu yahay reer hebelkanay yihiin waxaas waa nasab dhiman waxyaala sidaasa la yidhaaho waa jaahili dadkuna ma daynayaan isagoo la isu faano oo qofku dhalashada isugu faano markii hebel baan ahay oo kanaan ahay oo landheeraan nahay oo kidaa baan nahay oo waxay yidhaahaan waxaan ka soo jeednaa meel fiican baan ka soo jeednaa reer sheekh hebel baan nahay oo waxaasay yidhaahaan oo dhalashadii ay ku faanaan iyaduna waa arrin jaahiliya dadkuna ma daynayaan isagoo lagu roob doonto roobka loo aaneeyo xilliga iyo saxalka iyo xidiga iyo la yidhaaho sanadkan sanad aaran buu noqonayaayo deer sanadeedu deer arbacaad ma yidhahaan deer arbacaad weeyaan oo ma gu waxa weeyaan hulaasaad wuxuun intay yidhaahaan sanadkan barwaaqay noqonaysaayo xidig hebel baadaya maalintaa la fadhiyey oo barwaaqay noqonaysaayo ama abaar bay noqonaysaa ay yidhaahaan iyaduna arrin jaahiliya weeye ummaduna dayn mayso waxyaalaha niyaaxada ahoo loo sameeyana maydka loo sameeyana ma daynayso marka waxaa arkay صaxaabi oo la yidhaaho jariir ibn cabdillahi albajali radia allahu tacaala canhu yaa wuxuu arkay waa صaxaabi hadda waqtigii nebiga calayh الsalaatu wasalaam bay arrintu dhacaysa ka dambow saxaabadii ay weli noosha wuxuu arkay qof dhintay oo gurigiisii inta la fadhiyo cunto la karinayo oo cuntadii la cunayo oo sida tan aan naqaana markaasu wuxuu yihi kunaa nacudu aljuluusa macnihiisa xadiidka uu yahay waxaan ku tirin jiray waqtigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fadhiga la fadhiisto qofkii dhintay gurigiisa la fadhiisto wa saniicata aطacaam iyo cuntada la sameeyaba min anniyaax niyaaxadii uu nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu yidhi min amri iljaahiliya weeyaan riwaayo kalena ay leedahay kufri weeyaan taasay u haysteen saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam kalkuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu noolaa inay ka mid tahay fadhigan la fadhiisanayo cuntada la cunayo ma aha xoolo agooneed baa la cunayaa bay dadka qaarkood u qaateen oo markaas waxay yidhahan xoolihii agoonta annagu ma cunayno annagaa bixinayno oo annaga lacag iska ururinayno oo taas maya isu imaatinka la isu imaanayo ee cunto la samaysanayo meel kastaba cuntadaas ha laga keene ee meeshii qofkan dhintay daraaddii loo fadhiisanayo daraaddeed bay xaaraam arrintu ku noqonaysa hadday arrinta ku sii darsanto isagoo xoolihii agoonta la cunaayo ama dadkii dhaxaltooyada lahay oon ogeyn qof
غريب وميل اسكاد انت وحقا مال لها يسقون dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo ayna ka warhaynin xoolaha la iska qalqasho xaraam bay markaa noqonaysaa xaraam bay noqonaysaa waxyaalahaas oo dhan kolka xaraam weeyaan aad iyo aad baana dadkii ay ugu baloobeen waxaa jirta waxyaalo sharciga oo dadku ay leexiyeen oo sidii sharciga uu ku ahaa magacuu sharciga ku ahaa magac aan ahayn oo magac wanaagsan ay ula baxeen tanaa ka mid a dadkii tacziyay ku magacaabayeen tacziyadiina waa arrin sharciga oo wanaagsan oo muxuu ahay tacaawun uu ku jiro oo qofkii oo khayr la faro oo la waahiyo oo sabir allah ku siiyo la yidhaha iyo maydkii loo duceeyo waa arrin fiican taasaa tacziye sharcigu u yaqaan tii sharcigu marka niyaaxada u yaqaanay tii baa inagu tacziye ku magacaabo magacna macna ma leh magac kasta ha loo bixiye shayga waxaa laga fiirinaya macnihiisa laga fiirinaya wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaan inay jiri doonaan qaar ummadiisa ka mid ahoo khamrada cabbi doona oo magaceedii magacaanayn ku sheegi doona almashruubaat alkuxuliya almashruubaat alruuxiya biira maxaa ahay waxyaala magacyay u sheegayaan oo khamre ma dhahayaan magacyo laga yaabo inay kolka qaarkood wanaagsan yihiin mashruubaat ruuxiya yani ruuxda dhisto oo macnaha moraalka kor u qaado oo bay ka dhigayaan way jeclaysiinayaan dadka magacoodii magacaan ahayn bay ku sheegayaan oo way cabbayaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khamray cabbi doonaan iyagoo ku magacaabaya magaceedii magacaan ahayn khamrana waa khamro un magac kastaba ha loo bixiyo niyaaxana waa niyaaxa un magac kastaba ha loo bixiyo caqrina waa caqri iyadana magac kasta ha loo bixiyo marka arrimahaas oo dhan kulligood wada xaraam weeyaan dadkiina waa caadaysteen dad baana jiro oo lugooya waxaa jirta marka arrin nebiga calayhi salaatu wasalaam uu faray oo dadkuna si xun ay u deliishadaan arrintaasi waxaa weeyaan jacfar ibni abi aalib radia allahu canhu markuu dhintay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qoyskiisii ku yidhi reer jacfar cunto u sameeya arrin shuqlisay baa u timide cunto u sameeya marka waxaa weeyaan ciddii laga dhintay oo qaraabadeedii iyo deriskeedii iyo maalmaha hore geeridu ay ku cusub tahay ay shuqlan yihiin ay naxsan yihiin ayna hawlahooda qabsan karaynin oo cuntaa loo sameeyo cunto bisi loo geeyo qadada iyagu gurigooda ku karsan lahaayeen gurigaaga intaad u kariso aada u geyso taasuu faray nebigu alayh salaatu isnacuu liaali jacfarin طacaaman fainahum ataahum maa yashqaluhum reer jacfar cunto u sameeya arrin shuqlisabaa u timide marka arrinta sharcigu waxa weeyaan waa midaas weeyaan dadkii cunto loo samaynayo oo meeshoodii loogu geynayo oo la dhahayo cuna antadan sada cuna oo marka waxba waa la wada dhiman doonaayo murugta iska bi'iyo kaa la yidhaaho marka haddii loogu sii daro in gabdhaha iyo inta loo diro la yidhaha dharka u dhaqo oo guriga u xaaqo oo hagaajiyo maalmaha hore hawshaa u yarqa qabta intay ka ilaaween musiibada durbe waa la ilaawaaye laakiin kolka hore cusub tahay waxay leedahay muxuu ahayey jub weyn bay qofka u geysanaysaay oo masaalixdiisa iyo danihiisa uu qabsanaya aanu qabsan karaynin marka musaacado la saacido oo maalmaha hore lagu caawiyo in cuntada loo kariyo iyo in hawlaha loo qaqabta iyo taas weeyaan sharciga tiibaa marka dadku waxay u rogeen in gurigoodii inta la tago oo guryaha siay caadooyinka dadka soomaalidu waa kala duwan yihiin qaar waxay yeelaan guryahooda intay cunto ka soo qaadaan baa guri walba cunto laga keenayo meesha laga dhintay la keenayo ee lagu cunayo dadna waxay u yaqaanaan inta cunto iyo lasoo amaahdo dukaamo iyo jawaano laga soo qaado iyo loorar iyo laga soo qaado iyo sokor iyo maxaa ahayd iyo halkaa la keenaya lagu karinayo intubana marka xaraam weeya intaa qoyskii u xigay ee guriga walaalkii ama guriga aabihii ama ina adeerkii ama dariskii cunto iyagii ku filan inta u keenaan iyagii muxuu ahay lagu caawiyo mooyaane wixii kale dhan xaraam wey waxaa jirta oo kale oo waxyaalo la yaab la arrin qolyo beri ay ku doodeen ay kuna doodaan hadeegoon inay cawaale waa wada joogin waxa weeyaan dad baa waxay dhahayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cunay saas afka ku caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xoole mayd loo qalay cunay haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay sugnaatay inuu cunay oo waktigiisii loo qalay dee sharci bayba noqon lahayd oo wax ka hadli dhahaa ma jireen laakiin ma jirta arrinta mise ma jirto arrinta
ay sheegayaan waxa weeyaan xadiid saxiix ah laakiin kutubaha qaarkood wax yaroo qalad ah oo xagga madbacadii intuu ka galay aanu qofkaan baxdi samaynin aan ka dabagelin aan baarino aanu garanaynin oo iyagiina ku dabagadisnay marka rag awal horeba u bartay xoolaha dadka cunidooda oo waxoogaa helayna waa garanaysaan inay sharci bay ka dhiganayaan oo waa ku doodayaan oo ku murmayaan arrintaasi waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo qof dhintay aaskiis ka soo noqday asxaabtiisii oo guriga ay tageen oo hilib loo keenay hilibkiina si runtaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aanu cunin oo sabab u diiday baa jirto waxay ahayd neefkaa la qalay baa wuxuu ahaa neef qofka ilaahay aan ogeyn sida lagu qalay bu ah nebigana alayh sala allah u sheegay oo kolkuu afka gashaday waa liqi kari waaye marka kolkii loo sheegay oo arrintiina loo sharxay waa tufay halkii baa lagaga tegay wuxuuna yidhi hala siiyo dadka maxaabiista hala siiyo xadiidka marka sidaas weeyaan lafdigiisuna waxaa weeyaan ataahu daaci imra'atin kutubaha qaarkood baa si kala dhigaayo oon idinka digaya ogaada qofkii haysta kutubahaas haweeney nin ay soo dirtay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam usoo dirtay baa u yimid nebiga alay slam isagoo kasoo gadoomay aaskii marka kutubaha qaarkood baa waxay sheegayaan atadhu daaci imra'atihi sidaasaa qalad ahaan hadaas yar baa gashay muxuu noqonayaa marka daaci imra'atihi haweenaysi qofkan dhintay haweenaydiisii qofay usoo dirtay baa u yimid waa u eg yahay daahirka marka in ninkaa loo qalay oo qof dhintay xoolo loo qolay haweenadiisa u qashay nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu yeedhay lakin xadiidku sidaan ma aha inaanu sida ahayna waxa u daliila kutubaha asalka ee xadiidkaa wariyey sida sunan abi daawuud musnad alimaam axmed wa dalaa'il الnubuwa lilbayhaqi kulligood daaci imra'atin ayay leeyihin kitaab marka la yidhaaho mishkaat lmasaabiix kitaab la yidhaaho oo kitaab mashhuur ahoo kutubaha xadiidka wanaagsan ka mid a ayaa wuxuu dhigayaa daaci imra'atihi hadaasaa qalad ahaan u gashay daaci imra'atihi waxaa arrinta weliba sii foolxumeeyey asheekh alalbani xafidahu allah waa nin caalimaho weyn oo aad ugu dheer culumta xadiidka aqoonteeda baa wuxuu leeyahay ay imra'ati lmutawafa waa sii darsaday marka kolka waxayba noqotay qofkii intaa helaayo oo hortii horena arrinta ulahaa raqbo u lahaayo caatifo u haysay sharci buuba ka dhiganaya laakiin arrinta markaan dib u baadhno sheekh alalbani naftiisa wuxuu sii raacsiiyey abu daawuud haadaasu kuma jirta laakiin waxaa suurowda in kitaabu dalaa'il الnubuwa oo bayhaqi uu leeyahay oo isaguna abu daawuud un kasii qaatay aan meel kale ka keenin oo isaga abu daawuud laba qofunuba udhaxayso inuu ku jiro marka waxaa weeyaan sheekh alalbani markuu qoraayey arrinkaa qoraayey kitaabu dalaa'il الnubuwa madbuuc ma aanu ahayno ma aanu taalacanin lakin kitaabu dalaa'il الnubuwa waa soo baxay isagoo madbuuc 7 mujallad ah hadaasuna kuma jirta isagana sidayna asalkiisii abu daawuuda baa inagu jira waxaa arrinta weliba sii wanaajiyey oo si fiican uga digay almubaarak fori kitaabkiisa la yidhaaho tuxfat alaxwadi ee tirmidiga sharixiisa yuu si fiican u sheega uu leeyahay kutubaha qaarkood hadaasaa gashay hadaasuna kuma jirto laga digsoona marka qofkii haysta kitaabu mishkaat almasaabiix taxqiiq labaad buu ku celiyey asheekh alalbani oona weli soo saarin hadduu soo saaro waa suurowdaa marka inuu ka gooyo laakiin ataxqiiq alawal qofkii haysto ha ku qaldamin haadaasu qalad weeyaan daaci imra'atin weeyaan haweeney riwaayadaha qaarkoodna waxay dhahaysaa daaci imra'atin min quraysh ninkuna ansaari bu ah arrintaasu marka waxaa weeyaan waa arrin loogu cudur daari karo qofkii sidaa u qabsada isagoon baxsi aan samaynin laakiin waxa weeye markii loo sheegay lagu baraarujiyo waa inuu ka joogsado ninkaasaan annagana waalintaa waa nagu diiday oo ma nuskhadaadaad nagu qasbaysaa intaasoo nuskhadood baa jirta war nuskad keliya oo haadaa dhigaysa miyaad ku haysaa adigu hayda wal iskaba dhaaf haddaad tu kala haysato oo dhigaysa balkeen dee ninkii raba wax rabaayo wuxuu doonu iska dhihi karay
وعكلا جعفر أرنتي سهد أن شيء إننا دب أسود لشنا يودها نبي عليه الصلاة والسلام أنت الله سماه أبو فريق الكل جعفر ودين قاربة واحد دهيان حديث عائشة أنك سعد بن عبادة رضي الله عنه كل هو يريد دمتي سوى سفر كل مقام به هو يريد دمتي مركو صون نقضي الله شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو يدي واد دمتي أو ما أين الدردار من هذي هل كرتنا ودردار من لهيد صدقائنا أبحيايو ما يبنى انتهي هابو النبي عليه الصلاة والسلام باربو مركو وقفي هو يدي باربو وقفي وصح واجب سواء كان أنا عيال بوقة بيت راهيو بيها بو وقف عيالكي ذك كعب هيانا هو يدي أجر صدقه غديك طيب بارتي عن توي بصام بي أهيد أم هاي ملكو يالان ولا عنايو مركز صوماها ما عنتم كانوا بس عنتما maxaa isagadana shay la waqfay oo qofkii doona uu meesha ugu tagayo ku cunaayo oo weligeed iska soconaysa iyo cunto meel inta la isugu yimaado muddo gaaban la cunaayo sharcigu xaraamiyay niyaaxa ku sheegay waa qofku markuu dhinto gurigiisa inta la fadhiisto cunto lagu karsado muddo la fadhiyo oo la yimaado cunto yaan la cunin qofna ma dhahayo yaan sadaqa la bixinin qofna ma dhahayo haddii sadaqa run ay tahay waxyaala noocaasa kala jira oo dadku ay dadka qaarkood ku maskax wareeriyaan oo sharci ay uga dhigaan sharcina ma noqonaysa xaraam waxa kale oo iyaduna ka sii daran oo dadka qaarkood ay dadka sharci uga dhigaan oo ay uga dhigaan waxa xuska la ilaahiyo ugu sharceeyaan waxay dhahayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam khadiija xus u dhigayo xoolo u qalay khadiija xadiidka ay leeyahay sida ka dhigayaan bal fiiriyo sidoo waxa weeyaan عائشة waxay leedahay radiyallahu ta'ala anha iyadoo ka waramaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo khadiija uu u jeclaa ee u xurmeyn jiray ee uu u ilaawin hadiyo goor u hadalhayn jiray iyo say uga masayri jirtay ee hadiyo goor uu soo xusuusan jiray khadiija uu amaani jiray sayana ka masayri jirtay iyagoo isba soo gaarin waxay dhahday waxa dhici jirtay in afariya la qalo oo nabiga kaleey salaatu wasalaam xubnaheedii xubno ka mida uu yidhaaha khadiija saaxibadaheedii xubinta neheblaayaha loo geeyo khadiija saaxibadeed bay ahayd xubinta neheblaayaha loo geeyo waxay berigii khadiija darisnoo ahaan jirtay xubinta neheblaayaha loo geeyo berigii khadiija inay soo ziyaaran jirtay marka khadiija haweenkii ay saaxiibka ahaayeen ee isku ayniga ahaayeen isjeclaayeen ee dariska ahaayeen ee wada sheekaysan jireen isa salaami jireen ayuu ku xurmeyn jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam markii xoolo gugiisa lagu qalo in hilibkii wax looga hadiyo khadiija u qalay nabiga kaleey salaam baa laga bedelay marka dadka caamada hadda marka waa la jahwar waxyaalahaas oo kale wax aan waxba ka jirin weeyaan waxa weeyaan marka arrimahaas xaraam weeyaan qofku markuu dhinto waxa la naga rabaa waxa weeyaan inaan si fiican u dhaqno oo dhar fiican ku kafanno aan la dhihin qof dhintay kabiisuna ka roone naga dacala xun ku duuduuba oo maxaa naga geeya qabrigiisa naga geeya haddii loo heli karo waa in kafan fiican la geliya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa waliya axadukum akhaahu falyuxsin kafana ninku markuu walaalkii ka shaqaynayo meydkiisa uu ka shaqaynayo kafanka ha u wanaajiyo dhar fiican oo aan dhar aad u liitana aan ahayn dhar aad u xun aan ahayn dhar dhexdhexaad oo macquula ah halaw dharkaas ama kuwa la dhaqay ha ahaado sida abubakar ba uu sheegay uu dardaarmay saw ama ku cusub la soo eeyay ha ahaade in dhar fiican loo kafna hadii loo heli karo in si fiican loo dhaqo saddex goor iyo ugu yartahay la dhaqo oo la nadiifiyo si fiican loo nadiifiyo oo dhar fiican lagu kafno oo lagu tukado oo kalka la tukanayna si fiican oo qalbi loogu duceeyo ikhlaas ay ku jirto loo duceeyo qabrigana si fiican loogu qodo oo aan la dhihin baa wuxuu la foo iska noqon doonaa inaga geliya ciid iskaga roga aan la dhihin meel fiican loo qodo weliba waxaa jirta dadkan rabdaxeedka iyo xamar iyo intaas baba sida qubuurta oo qodaan waa laga fiican yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yidhi اللحد لنا والشق لغيرنا لحد iyo shaq waxa la yiraahdaa kala jira lahd ama luxud waa ilka habaasha la dheereeyo horta hore
la gaarsiiyo hoos loo dheereeyo markii salkii la gaadho gees inta loo hulo meel fiican oo qofka si fiican ula ekaanaysa loo sameeyo in halkaas la dhigo oo markaas si fiican loo dhoobo ilkii si ayna ciiddi ugu soo gelin oo ciiddiisa lagu taas marka laxdi baa la yidhaha shaqigana waa tantada marka soliga dhexda laga jeexayo kolka xabaashii hore la qodo xabaal bilaash ay yidhaahaan ta la qodo haddana dhexda laga sii jeexayo oo fusi iyo lad kor saarayo ma aqaano ma dibyaraysi baa dadka ugu wacan oo fusadaas dirbe la iska saaraya in dhoobo iyo bulkeet iyo waxba loo raadinaynin bay ugu danaysteen mise waa iska caadaysteen marka ummadaha kale ee gaalada aaskooda taasi waay aaska muslimiinta ma aha caadadaas ha la iska gooyeen reer banaadir iyo wixii la halmaale ee sidooda oo kala yaqaanaa hataa afgooyahankada idinku dhow idin lama qabaan maalin baan joogay meel nin lagu aasayo marka il bay sameeyeen waxay sameeyeen laxdigii caadiga ah bay sameeyeen marka waxa weeyaan kayfiyada reer banaadir ay wax u aastaan kayfiyadii muslimiinta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ma aha ee hadda kadib isku daya inaad iska bedeshaan qofka idinku soo horreeya dhiman doona kolley waa la wada dhimanayaaye isugula dardaarmi oo marka il u sameeya xajcalhay iyo guulle iyo odayaashiina jooga waa loo leeyahay arrintaas ajri baad ka helaysa caado xun qofkii gooya waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabica haddaad caadada intaad u ololisaan aad goysaan oo qofka idinku horreeya intaad ku bilowdaan oo caadadaasu ay hirgasho qof allo qofkii sidaa loo aaso oo dhan ajrigiisaad helaysa see ahayd marka iyaduna kolkaasaad fiicnaydeen kolkaas caado xun bay idin keeneen iska gooye walka iyo kuwan la yeeranayo ee waxbaa la siinayo oo iska hawlyara fadhi buu ku qoday qofka fadhi waxaa ku qoray nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay axsinuu wa acmiquu fiiriya shuhadaa uxud markii la aasayey oo dadkuna ay fara badnaayeen dhintay ciidankuna uu yaraa baa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi si fiican godka u qodo oo dheereeya waa waqti dhibaato lagu jiray ba marka godka horta waa in la dheereeyo nin baa isagoo iska fadhiya waxoogaa aashii labagarleyda sidaa ku dhahaya ha aad iyo aad marka waxa weeye qofka mu'minka ahi xurmadiisu waa isku mid intuu nool yahay intuu dhintay hadduu nool yahay oo ku soo martiyo guri fiican baad seexin lahayd sooma haddaad u hayso qof fiican ma aadan u gogasheen meel xunoo digaaggiiyo dhinaciisa iyo maadan u gogasheen qof fiican baad geyn lahayd oo gogli lahayd marka kolkuu dhintay marka waxoogaa yaroo god yaroo la moodo god doofaar la moodo oo kale intaad u qodayso god fiican u qod iilka u samee si fiican u dhoob sidaas marka aaskii muxuaha sidaas weeyaan aaskii sharciga ah marka kolka khalaas kolkii sidaa loo duugo ee la aaso in la dhidhisaa oo wax lagu qorqoraayo magaciisa iyo qabiiladiisu sumadda ay xoolaha ku dhigatay iyo waxyaalahaas lagu qorqoro taariikhduu dhintay iyo in wax lagu dhidhiso oo taabuut iyo shamiinte iyo nuuriyad iyo waxaasoo dhan kulli wada xaraam weeye kolkii xataa qabrigiisa in la taagoo la dheereeya xaraam si fiican ha loo aaso ha la calaamadeeyo si looga leexdo oon qof kale aan looga qodin ama xoolihii iyo carruurtii iyo aynagu ciyaarin khalaas farahan aan laga qaado ciiddiisa wax ka ziyaada ah waa inaan lagu daray ciid kale hataa looga keeno la dheereeyo kolkata maa rasuulka alayh sala sl amar buu ku bixiyey in qabri alla qabrigii dheeree taagan oo dhan la dumiyo marka qubuurahan sheekh hebel iyo qubad baa loo dhisay iyo masjid baa lagu kor dhisay iyo waxyaalahaas oo dhan kulligood wada xaaraam weeyaan ciiddiisaasuuna lagu rogo dhagax iyo wax lamid ama qori iyo lagu calaamadeeyo inuu qabri yahay meeshan lagu garto bas wax ka soo hadhay oo dhan kulligood wada xaaraam weeyaan wasala allahu calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حديث جرير بديدية
xadiidkii jariir baa diidaya xadiidka ma mid baan ka soo qabsanayna sadaqa ma u bixiyaa haa haye tanuna sadaqa maaha waa niyaaxa haye waa ka hadda wakalagan sheegayo oo kale waa isaga naftiisi waa isaga naftiisi xadiidkaas waxa weeye haddaaban sheegayay xadiid ma horta waa athar xadiidna athar weeyaan waxa weeyaan nin la yidhaaho طاووس ibn kaysaan oo taabiciya yaa wuxuu leeyahay waxay jeclaayeen qofku markuu dhinto 7 beri in cunto loo bixiyo waxay jeclaayeen xadiis ma doogaada waa nin taabiciya baa arrinkaale waxay jeclaayeen markuu qof dhinto in 7 beri cunto loo bixiyo asarka isaga waxaa warinaya alimaam axmed fi الzuhd وأبو النعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وأنا أثر ضعيف أبو إسحاق الشاطبي في فتاويه وضعيفي وأنا ضعف في سنة بين وأنا جلال الدين السيوطي في فتاويه سوى اسكده يبينه لغلغ اسكده وأنا أرنتاس معروف يا رحمه الله وأنا الدليل الركاء سقع وجلال الدين السيوطي نفسي سوء قري ninka ka warinaya طاووس ninka ka warinaya waa سفيان الثوري سفيان الثوريna lama oga inuu طاووس la kulmay in kale lama oga waliba wuxuu ictiraafayaa Jalaaluddin Suyuuti sida inta badan ee qaalibka markuu سفيان الثوري طاووس wax ka warinayo biwasito kaga wariya kol buse بدون واسطة uga wariya kol kana bi'an buu isticmaalaya an سفيان الثوري مدلس بوها رحمه الله مرقى قفك مدلس هنا كل هدو عن يلاه عن فلان لما أقبله حديث سنة ضعيف وكل غيره وأرهن معروف كتب مصطلح الحديث ودنا كل يدو قرس قفك مدلس فيه هدي وقف وكوري عن ويلاه عن فلان ويلاه حديث كاس ضعيف ونغر وحكى له أرهن تأسيه لسا xadiidku waa sanadkiisu iska gaaban yahay thulathi weeyaan muxuu ahaa dadka uu sheegayo Sufyaan waa طاووس uu sheegayo taasay dadku saasay jeclaayeen uu leeyahay waa taabici ninkan kaadu marka saxaabadii miyuu ula jeedaa mise taabiciintii buu ula jeedaa iyo waqtigiisii dadka caadadiisu ka wadaa dadka uu sheegayo ma aanu caddaynin ولبا نينك سفيان كسي وري نفتيسو وانين مبهمة الأشجعي وأقوم أشجعي نينك كلا سدحانا وحاوية ومن المتغير أهو آخر عمره واختلاط قضعي لما نقوم اختلاط في بكوري انت واكات مركا حديث كمركا حديث إذا الله تحليلي وحلو قال أنا يائنا حقيقة أي تهين سنة بالكاس أثر كاس حديثي عن الدين إنه ضعيف يهي وجلال الدين السيوطي رحمه الله كقف سنة وأبو إسحاق الشاطبي وصوابك ألا وافجي بس مركا لكن مركا قفوح الدون يوقيل ومواهي قفك يا مركا وقف يا آخر دي اسمك صلى الله على نبينا محمد وعلى ولا حول ولا قوة هنا حالك وقلق هنا حالك وقلق أكو سود دعاء سود دعاء يا دمار هكذا ما يبرر ساعتك كي هذا عثمان كوسو قال حول كوسو قال موسى إلى ورضي وحبي حوليان لوكلين وهي موسى باري وقال عثمان بعاقة وحنا جبت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيري بل أقول يسكى الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فحديث صحيح qofka dhintay waxa lagu cadaabaa qabrigiisa waxa loogu bararto tanuna marka bararto bay kamid tahay Soomaa marka hadii tacsiil loo dhigo waad ogtiin marka tacsiila waxay leeyihiin waxa ka imaanaya sheeko xun iyo muxuu ahay sigaar iyo qaab iyo waxyaalahaas meesha la yimaado iyo waxaan haboonayn
rag iyo naag iska dhex shaqaynayo naagii cuntada karinaya rag kasoo qaadqaadayo naagii inaad asturayn iyo waxaa fadaa'ic kalaa ka dhalata weliba haddiiba uu iska yahayba sadaqa caadiya uu iska yahay oo haddana waxyaalahaas ay ku dhex darsamaan isagoo salaaddii ay gaabato oo salaaddii lagaga shuqloomo sheekooyin iyo waxyaala aan fiicnin lagaga sheekaysiyo waxyaalahaasa dhaca xaaraan buu noqon lahaa marka ijtimaaca noocaas oo kale marka xaaji caliyo waxaa weeyaan haddii lagu soo dhigo muxuua kolkaad dhimato geed oo xolo lagu soo qalqalo waxaa suurowda in lagu cadaab ay kugu noqoto cadaab ay kugu noqoto adiga qabriga ku jira ma adaa isoo kariyay xoola isoo qalqala maadiga ka lagu yidhaaho haye marka ninkii saakadintay geedan baa ku baxay godkii baa la roday warqaad dadkii waa kulaaday sadaqa kalena mahay neef geela iyaa soo dhacay neefku waxa dadkii sooga logay duubaa la yaalaa wax saamaha caalam waa naqaanaay caadada waa naqaanaay dadka qubuurta qoday waxaaba suurooda in lacag la siiyo oo ayli iyo waxyaalaas inta loo soo ijaartaa lacagtooda la siinaya waana iska baxayaan iyagu kolkii lacagtoodii bay qaadanaya kolkii godkii dhameeya ikaadi kuwana waa yaqaanaan iyaga naftooda reer daxaadkankada waa yaqaanaan war aylihii meesha deganaa u yeedha qabriga haqodan baa la dhahaya waxoogaa baa loo ururinaya waxoogaa baa la siinaya waxoogaagooda qaadanaya waa iska tageen waxaa la waayi lahaa dhowr oday oo iska nasnaayo oo iska joogo oo intay ninkii qabrigii geliyaan ciiddii ku rogaan guryahoodii kala aada inta dadka loo yeedhayo ciidanka ku baxaya waa ciidan yar laakiin jeiska imanaya intuu dhan yahay imisaa geedahaasoo dhan baa lasoo kolkii la maqlo nin hebel baa dhintay baa geedaha guriga ku dhahoo dhan la buuxinaya dadka oo joogo hadduu yar yahay ma lisan ma aha ciidan in loogu baahan yahay oo ciidankii qodi lahaa wax la siinaya ay tahay arrintu ma ahee waa arrin caado ahoo gabowday oo sharciga khilaafsan oo la iska goyn laayahay weeyaan la dagaalamaya ha u dejayna muxuuha iga dhaaf xaalimow dadka qof waliba guryihiisii ugu dhisa shaaqadadiisii